بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين سكفريستا وما سنتين أصدقائنا كلين دمان مداحدا يا شعب قال كان يسوق تمد وزيرو يا حلبانو يا علمو دلنيرو وشذا ريتكا كوحدة بمبيدة فنانينتا يا دمان مرتي شرفتا هل كان سقوط مد كلين وان إذن سلامة مركور مركل لبعض وحنو مهد علنا يا عدي سوق من قابسي حفلة سدا آتكا موصن حفيز كريد الوزارة يا دمان ضدك كسعود بلشد الريدكا أو كقيب قاتي سوى بابولدا أرنكن oo ah qayb kamida isla xisaabtanka ka dhaxeeya dawladda iyo shacabkeeda waxaan soo dhaweynayaa wasiiradii halkan ka hadlay oo soo gudbiyay waxqabadkooda waxaan ugu baaqayaa wasiirada kale oo ka tirsan xukuumadda inay idin codsadeen shacabka Soomaaliyeed oo idinkana bisha soo socota halkan la idinkaga yeeri doono waxaan uga mahad celinayaa wasiirada shaqadii ay qabteen waxaan xasuusinayaa laakiin inay shacabka Soomaaliyeed yiraahdeen waa bilow waxaa la idinka rabaa shaqo intaas ka badan waxaan u mahad celinayaa xildhibaankii halkan ka hadlay oo sheegay in maalintii madaxweynuhu uu soo magacaabay kadib golaha shacabka Soomaaliyeed ay ugu ansixiyeen codkii ugu badnaa oo lagu ansixiyay ra'iisul wasaare Soomaaliyeed waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo markaa xildhibaanada iyo xukuumaddeedu inay saaxiibbo aad isugu dhow yihiin waxaa kaloon rabaa halkan inaan ka caddeeyo aan u sheego ma rabo in xildhibaanadeeda layga ceejiyo xildhibaanadu waxay leeyihiin waajib ay gutaan waana muhiim dawladdan lala xisaabtamin ma wanaagsanaanayso waxaan bulshada rayidka ka ajiibay codsigoodii ahaa in marka ku xigta haddii ilaahay yidhaahdo la hor keeno wasiirka gaashaandhigga wasiirka dastuurka wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirada kalood codsateen waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa wasiiradu waa shaqaalihii shacabka Soomaaliyeed waa inaad la xisaabtantaan ciddii shaqadiisa ama shaqadeeda gudan weysana aad tirahdaan shaqadaadii baad gudan weysay isla xisaabtanku waxa uu ka bilowdaa meesha ugu sarreysa iyo meesha ugu hooseysa caawa waxaan halkan isugu nimid in xukuumadda iyo shacabkeeda aan la kala dhex gelin waxaan halkan isugu nimid inaad dhegaysataan sida ay xukuumaddiinnu u shaqayso ma rabo inaan halkan ku soo celiyo waxyaabihii ay ka sheegeen laakiin waxaa la idiin sheegay in markii ugu horraysay 27 sano kadib in la bilaabi doono in dalkan laga hirgeliyo jidad waaweyn oo isku xidha magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka waxaa la idiin sheegay in markii ugu horraysay 27 sano ay bilowday dawladda Soomaaliya iyadu inay mas'uul ka noqoto dhaqaalaha dalkan imaanaya waxaa la idiin sheegay 27 sano kadib in hawadii korkiina baadida ku ahayd ay la soo wareegtay dawladdiina Soomaaliyeed
waxaa laydiin sheegay 27 sano kadib in qof walboo dawladda u shaqeeya la siiyey mushaar sanadkanana uu ahaan doono sanadkii ugu horreeyey 27 sano in qof walba deynta uu ku leeyahay oo mushaar ama gunno ah la siin doono laga soo bilaabo Janaayo ilaa December iyadoo waxaan rabaa horta dhallinyarada halkan joogta maalin walba fursad uma heshaan ra'iisul wasaaraha inaad dhegaysataan waxaan rabaa inaad aamustaan oo dhegaysataan horta waa inaad dhegaysataan waxa la idiin sheegayo si aad ugu xisaabtantaan dalkiinnu meeshuu marayo in la isdhegaysto waa tallaabada ugu horraysa dawladnimada in qof walba uu mushaar siin doono ayuu noo sheegay wasiirku iyadoo aan hal shilin oo dayn ah lagu dari doonin wixii dayn dalka lagu lahaa waxaan ugu nimid halkan anigu aan ra'iisul wasaare ka noqday iyadoona koonka dawladda aanay lacagu ku jirin sanad marka uu dhammaado waxaan u gudbaynaa iyadoo in ka badan 30 milyan oo dollar ay ku jirtaa koonka dawladda Soomaaliyeed waxaan u nimid halkan iyadoo loo baahan yahay dalkan in shuruuc laga hilgeliyo si dadka wax loogu qabto waxaad ogtihiin waa markii ugu horraysay ee xukuumadii muddo 3 bilood keliya ee baarlamaanka ugu gudbisay in ka badan 15 sharci oo mid walba dalka wax ku oolu yahay waa markii ugu horraysay ee la ansixiyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa waxaad ku bishaaraysanaysaan siduu yidhi shiikhii halkan ka hadlay Sheekh Nuur Baaruud maadad loo soo xiro musuqmaasuqa waa markii ugu horraysay oo laga ansixin doono waddankan in la dhiso guddi madax bannaan waa idinkugu soo celinayaa guddi madax bannaan ka madax bannaan dawladda iyo xukuumadda oo la dagaalamo musuqmaasuqa oo dhaqaalihiisa haysta oo xaq u leh inay cid walba daba galaan soona xiraan cidda qiyaamaysa xoolaha dalka waa markii ugu horraysay baarlamaanka loo gudbiyey la ansixiyo sharciga isgaarsiinta sharciga xakamaynta hubka sharciga waxbarashada sharciga caafimaadka waa markii ugu horraysay ay timaado xukuumad tiraahda si dalkan dhibka looga saaro waa in la helaa shuruuc kuwaasi waa bilowgii waxaan gacanta ku haynaa in ka badan 12 kale oo iyagana la dhammaystiri doonaa sidii wasiirka amniga halkan uu idinkaga sheegay waa markii ugu horraysay oo amniga magaalada Muqdisho lagu sugo xoog muruq maskax iyo dhaqaale Soomaaliyeed oo kaliya waa ogahay inay shacabka Soomaaliyeed weli dareemayaan inaanu amnigu ahayn sidii ugu horraysay ama sidii uu rabay inuu noqdo laakiin waxaan idiin sheegayaa in miisaaniyadda sanadkan aan baarlamaanku u gudbinay ay ka duwan tahay wixii miisaaniyadda waddankan la gudbin jiray waxaa ku jirta kow in la kordhiyey lacagta amniga oo markii ugu horraysay aan u qoondaynay lacag miisaaniyadda ku jirta oo looga shaqeeyo sirdoonka keliya waa markii ugu horraysay waddanka oo aan miisaaniyadda ku soo darnay dhaqaale ka badan 5 milyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu dhiso iskuullo lacag laga soo qaaday shacabka Soomaaliyeed
ومركي ugu horeysay ee miisaaniyada lagu daro dhaqaale lagu dhisay isbitaallo laga soo qaaday shacabka Soomaaliyeed ومركي ugu horeysay ee miisaaniyada lagu daro 3 milyan oo dollar oo lagu dhameystiro dastuurka qabyada ah oo laga soo qaaday shacabka Soomaaliyeed oo aan laga soo tuugsan dalka dibadiisa ومركي ugu horeysay ee loo kordhiyo dhaqaalaha miisaaniyada akademiyada afka iyo suugaanka akademiyada af Soomaaliga in loo dhiso dhismaheedii uu naga caawinayo sidoo kale madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waa markii ugu horeysay ee miisaaniyada dawladda Soomaaliya lagu soo daro dhaqaale lagu dhiso warshado military ama waxyaabo kale oo muhiim ah dharka militariga loogu talo waa markii ugu horeysay ee xukuumaddu miisaaniyadeeda ay ku salayso mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed sideed bilood ay joogaan wasiirada halkan kuwa idin imaan doona waxay idin sheegi doonaan waa markii ugu horeysay oo si dhab ah u bilowno inaan xabad u tirino ciidanka Soomaaliyeed booliis iyo military waa markii ugu horeysay oo sharciga xaqsiinta ciidanka u gudbino baarlamaanka si kuwa howlgabka ah kuwa dhaawacma kuwa dhibaataysan loo geliyo meel gooniya laakiin ay mushaarkooda u qaataan waa markii ugu horeysay oo dawladnimada dalku ay u soo dhawaatay shacabka Soomaaliyeed wasiirada idin kala hadli doona waxay xukuumaddu qabatay waxa ay rabtay inay qabato way idin hor imaan doonaan waxaan rabaa inaan idin iftiimiyo mustaqbalka waxaan rabaa inaad si wanaagsan u dhagaysataan waliba dadka dhalinyarada oo halkan jooga waxaan rabaa inaad dhagihiina furtaan maxaa waddankeenu u taagan yahay meesha uu taagan yahay maxaa cid idinkugu sheegi weysay sababta aan halkan uga dhaqaaqi la'ana sababtu waxa ay tahay waddankan waxa isku haysta in ka yar boqolkiiba hal waxa isku haysta siyaasiyiin iyo ganacsato iyo kunka ama labada kun oo qofood oo dalka ugu sarreysa waxaa la ilaaway intii kale oo dalka joogta ma igu raacsantiin anaa idiin sheegayaa sidaas daraaddeed waxaan ka shaqaynaynaa inaan dhammaystirno dastuurka inaan dalkan u gudbinno axsaab in la dhammaystiro federaaleynta laakiin in la soo afjaro xilligii koox yar oo aniga iyo Khadiijo iyo Dalxa aan ka midnahay ay dalka iyaga kaligood hoggaamiyaan waxaa la soo gaaray waqtiga awoodda idinka la idin soo celi lahaa waxaan rabaa inaad si fiican u dhagaysataan waxaan rabaa inaan idin iraahdo waa inaad ogaataan waxa laga hadlaayo ma aha wasiiro ma aha ra'iisul wasaare ma aha madaxweyne ma aha xildhibaano waxa laga hadlaayo waa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waxa laga hadlaayo waa masiirkiina dhalinyaroy maadaama aad mustaqbalkiina idinku ilaasho weyseen أنا إدين شيء يا مانتا ماشي اللي إدين سو قارسي كو وحال إدين كله هاي إن كدو لحكن أو مليون أولا معنى هذا وعيت هاي وحال إدين كله هاي قان قاريسا إن كدو 6 بليون أو دولار وعن ربنا إدين شيء عدة لقرب العقد تاسينا يبحثوا
waxaa laga rabaa wiilashay gabdhaha yaryar oo halkaas fadhiya inay bixiyaan waxaan rabaa marka inaad ogaataan waxaad haysataan laba dariiq keliya ayaa idiin furan haddii aad dhegaysan weysaan waxaan idiin sheegayo deynta unbaa idinku sii kordhi doonta waxaa idiin furan laba dariiq oo keliya dariiq waa inaan ku sii jirno jidkii hore aan ugu jiri jirnay kaasi waxa uu keenayaa 6 bilyan oo laydinku leeyahay inay isu beddesho 7 8 9 10 ilaa 15 dariiqa kale oo idiin furan waxa uu yahay in deynta laydinka dhaafo 6 bilood oo la soo dhaafay xukuumaddaydu waxay ka shaqaynaysay shaqo aad u dhib badan oo ah sidii dalkan loo soo gaarsiin lahaa meeshii deynta looga deyn lahaa deynta waddamada Soomaaliya kule hadday kulligood isu yimaadaan ay qol isugu yimaadaan oo yiraahdaan deyntii waa idinka cafinay ma ka cafin karaan waxay wasiirka maaliyaddu inuu sidaas idinkuga sharxo ma idinka cafi karaan adduunyadu waxay samaysatay meel la yiraahdo Paris Club ka waxaa loo soo dhiibtay qolo la yiraahdo IMF-tu waa askarta commandoosta kuwooda ugu xoog badan sida ay u isticmaalaan international community-gu macnuhu waa maxay waxay ku leeyihiin si deynta lagaaga daayo kow waa inaad joojisaa laaluushka iyo musuqmaasuqa labo waa inaadan kharash garayn shilin aadan haysan saddex waa inaan la bixin kontrakti aan loo bixin si caddaan ah oo lagu bixiyo si xaq ah afar madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ma qaadan karaan lacagta akoonka ku jirta wasiirkuna ma qaadan karo annaguna waa inaan u jeednaa meesha ay ku baxayso sidaas daraaddeed ayaa lacagta akoonka idinkugu jirta safe u tahay shan waxaan idin siinaynaa shuruudo laydinka raba inaad soo martaan 6 biloodba 6 biloodba waxaa mar laydinka qaadayaa imtixaankaas markaad ku gudubtaan waxaa la idiin dhiibayaa shuruudo cusub 18 bilood oo isku xigta markaad ku baastaan shuruudahaas adduunyadu waxay ka fikiraysaa in deynta laydinka daayo waxaan rabaa marka inaad ogaataan dalkiina waxa ka socda hadda wasiirka maaliyadda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda 5 bisha ilaa 11 bisha waxay leeyihiin imtixaankaas isaga haddii marka wasaaradda iyo xukuumaddu ay imtixaankaas ka gudubto waxaa la gelinayaa mid kale ilaa bisha May haddii ay ka gudbaan ilaa bisha May waxaa la soo gaarsiinayaa xukuumadda meel wax lagu aamini karo ama dalkiina meel dhaqaale lagu aamini karo waxaa laga munaaqashoonayaa sidii deyntana loo kaga dhaafi lahaa si halkaas aan u gaarna marka waa in qof walba Soomaaliyeed oo canshuur laga rabo inuu bixiyaa labo waa in qoladeenan dalka xukunta aanan dalka xaqdarro ku xukumin saddex waa inay dhab naga ahaataa inaan la dagaalanaa musuqmaasuqa si sidaa loo yeelo marka waxaa laga rabaa ganacsatada iyo dhallinyarada iyo culummada iyo haweenka iyo bulshada rayidka haddii aad rabtaan inaan lacag la idinkugu soo dhiibin hay-ado kala duwan oo dibadda ka yimid haddii aad rabtaan inaad idinku adduunyada la macaamishaan oo aad qaadataan deynta aad rabtaan si aad uga dhisataan dhismooyinka iyo jidadka sidaas u eg haddii aad rabtaan inaad noqotaan dal xor ah laba dariiq ayaa idiin furan inaad u adkaysataan xanuunka aan mari doonno sanadka ama 2 sano soo socda iyo inaad ku jirtaan khasaaradii aan soo dhaafnay 27 sano oo soo dhaafnay ma ra'iisul wasaare hore Soomaaliyeed baa idin soo hor istaago sidaas idinkugu sharxay
haddaba ciddii rabta aniga inay i taageerto oo igala shaqayso soo celinta qarannimada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed dariiqa aan rabo waxa ay tahay dariiqaas ah in dalkani uu leeyahay cadaalad iyo kala dambayn dalkan laga joojiyo musuqmaasuqa dalkan laga joojiyo isbaarooyinka loo dhiganayo dawladnimada dalkan inaanu qabiil ka wanaagsanayn waa idin sheegay marka waxaan rabaa inaad dhegaysataan waa idin sheegay marka tiirka koowaad oo siyaasadda aan rabno inaan dalka ku hoggaaminno waxa uu yahay kow si loo soo celiyo sharaftii xorriyaddii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed horta inaan tuugsiga ka baxno si aan tuugsiga uga baxno inaan ku soo noqonno dunida si aan dunida ugu soo noqonno inaan la nimaadno maamul wanaag si aan maamul wanaag ula nimaadno waa idiin sheegay dariiqa la rabo in la maro waa inay shacab iyo dawladi gacanta isqabsadaana diyaar ma u tihiin soomaaliyeed labo waxaan rabaa inaan idiin sheego meesha kale aan rabno inaan tagno si waddankani uu u noqdo waddan isku filan waxaa lagama maarmaana inaan leenahay ciidan waddankan difaaca waxaan laga maarmaana inaan helno ciidan dalkan xoreeya si marka aan u gaarno heerkaas waxaan u baahannahay kow marka hore inaan ogaanno waxa aan haysanno soo maaha afarta bisha iyo shanta bisha waxaa la soo bandhigi doonaa warbixin daahfuran oo xukuumaddaydu ay ka shaqaynaysay oo ka hadli doonta ciidamadeenna qalabka sida tiradooda xooggooda dhibkooda dhaqaalahooda waxa ay haystaan iyo waxa ka maqan marka hore soo maaha inaad ogaatid cudurka aad qabtid si aad daawo u raadsatid markii ugu horraysay si aan ciidan qaran u dhisno waxaan ku bilownay horta inaan ogaanno waxa aan haysanno waxaa idiin imaan doona wasiirka gaashaandhigga oo idiin sharxi doona maadaama marka halkaasaan soo gaarnay hadda waxaan u baahannahay inaan dhisno ciidan qaran ciidanka qaran ee la dhisi doono mana anfacayso inay noo dhisaan dawlado shisheeye dhaqaalaha lagu bixinayana annagu inaan bixinno waayo sababta marka dhaqaalaha inaan xor ka noqonno aan uga soo hormariyey dhisidda ciidanka waxa ay tahay ciidan lama dhisi karo haddii aanan dhaqaale haysan soo maha sidaas daraaddeed xukuumaddu waxay hadda bilaabaysaa maadaama tiradii ay dhammaatay inuu baarlamaanka aan ka codsanno inay soo dedejiyaan meelmarinta sharciga xaqsiinta ciidanka kaasoo naga caawin doona kala saaridda ciidanka hadda noo jooga kaanu dhisno hay-addaas oo la kala saaro tirada dhabkaa aan ogaanno annagoo bilownay in ciidankii dib loo habeeyo dib loo dhiso waxaa noo soo bixi doona ciidan tayaysan urursan iyagoo kuwa hadda jooga ummadda soomaaliyeed ay u hayso abaal aad u weyn maadaama ilaa hadda
iyagoo aad og tihiin daruufta ay ku soo shaqeeyeen ay soo gaarsiiyeen dalka Soomaaliyeed maanta meeshu joogo waa maxay marka hadafkeena labaad dhisidda ciidan qaran muxuu samayn doonaa ciidankaasi marka waxaa lagu barbar dhisi doonaa boolis Soomaaliyeed marka la dhiso ciidanka marka qaranka oo xiriir loo sameeyo oo lagu tababaro oo ay meel xoreeyaan meesha ay xoreeyaan waa in lagu wareejiyaa ciidan boolisa oo suga amniga magaaladaas marka waxay tahay waddankan sida looga shaqeynayo waa waxa ay tahay in la yeesho hadaf dheer waa in laga fikiraa 10 sano soo socota waa inaan hadda aasaas sax u jeexnaa si aan aasaas sax ugu jeexno marka waa in qof walba oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo halkan joogta iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay gacan ka qaataan dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed saddex markaad dhaqaale haysatid markaad ciidan haysatid maxaa ku soo baxaya marka xukuumaddu waxay bilowday inay ka shaqeyso in la dhameystiro dastuurka ummadda Soomaaliyeed in waddankan loo daadajiyo in xisbiye loo gudbo in la dhameystiro qaybaha kala duwan ee cadaaladda si loo helo golaha adeega garsoorka loo helo maxkamad dastuuri ah loo helo garsoor dhammaystiran si isqabqabsiga uu dalku uga dhamaado waxaan idin sheegay in loo baahan yahay kow in waddanka dhaqaalaha iyo tuugsiga laga xoreeyo soo ma labo in loo dhiso ciidan dalka difaaca saddex in la dhammaystiro laga bilaabo hadda oo miisaaniyadda ku darnay haykalka dawladnimo oo dalka ka dhiman waxaan rabaa inaan idiin soo koobo dawladnimadoo dhan intaas markaad haysato marka maxaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay qaybta afaraad waxay tahay kow waxaa lala dagaalayaa qola xag jira oo la yidhaahdo shabaab oo ku andacoonaysa inay haystaan diin nala wadaagaan diin fikirkaas diinta ay ummadda Soomaaliyeed ku dhibaataynayaan cidda la rabo inay kala hadasho waa culimada Soomaaliyeed sidaas daraaddeed waxaan soo dhaweynayaa hadalkii uu halkan ka sheegay Sheekh Nuur oo ahaa inay isugu yeeri doonaan shirweyne culimo Soomaaliyeed oo shacabka Soomaaliyeed u sheegi doona dariiqa sax waxa uu yahay laba waxaa loo baahan yahay dhalinyaro Soomaaliyeed waxay noo sheegtaa Khadiijo 75% shacabka Soomaaliyeed inay yihiin dhalinyaro Soomaa 75% waa idinka Soomaa awoodda waddanka 75% ma haysataan awoodda waddanka haddii aad 75% ka tihiin awoodda dalka 75% ma haysataan maya ma haysataan waxaad haysataan ma jiraan haba yaraatee sidaas daraaddeed waxaad u baahan tihiin inaad is-abaabushaan inaad tidhaahdaan waddankan annagaa iskale cid dambana magaceenna dayn ku qaadan mayso annagaa u tashanayna masiirka ummadda Soomaaliyeed qaybta saddexaad waa dumarka Soomaaliyeed waxaad tihiin ugu yaraan 50% shacabka Soomaaliyeed awoodda waddanka 50% dhaqaalaha militariga booliska horumarka madaxda ma haysataan 50% haddii aad tihiin dumarka Soomaaliyeed ma haysataan Soomaa haddaadan 50% haysanina waa inaad hurdada ka kacdaan
oo tiraahdaan ugu yaraan boqolkiiba 50 ayaan u leenahay xaq waddanka inta qaybta afraad waxa ay tahay bulshada rayidka waddan aan lahayn bulsho rayid oo adag ma horumari karo waxaan rabaa inaan weydiiyo bulshada rayidka Soomaaliyeed ma haysataan doorkii aad ku lahaydeen bulshada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inaadan haysanin sidaas daraaddeed waxaa muhiim ah in aan ka wada hadalno yaa haysta awoodda waddanka yaa haysta awoodda waddanka xisaab noocee ah ayaan rabnaa inaan u yeelano awoodda waddanka haddii gabdhuhu ay yihiin boqolkiiba 50 waxaa laga rabaa raggu inay u oggolaadaan gabdhaha boqolkiiba 50 in la siiyo soo ma haddii ay yihiin dhallinyaradu boqolkiiba 75 waxaa loo baahan yahay in la siiyo awoodda boqolkiiba 75 haddii bulshada rayidka la rabo inay dalkan iyaga hoggaamiyaan waxaa la rabaa in la siiyo awoodda qaybta ay ku leeyihiin may raggu idinma diidi karo annagaa idinla duuban oo diyaar idiin ah laakiin idinku waa inaad xuquuqdiinna u istaagtaan raggu idinkama haysan karaan ee waxaa muhiima inaad xuquuqdiinna u istaagtaan waxa la isku haysta marka waxay tahay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waa inaan kala doorannaa laba mid inuu yahay inaad rabtaan inaad markhaati ka noqotaan mustaqbalkiinna in maalin walba lagu gorgortamo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed idinkuna sida kubad la ciyaarayo aad bannaanka uga daawataan iyo inaad tiraahdaan 27 sano ayaa nagu filan 27 sano ka badan ma idiin ogolin dalkan in la dulaysto waxaad u baahan tihiin tabaabushaan haddii aad tihiin dhallinyaro Soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaan idiin sheego laba arrin oo kale waxay ka hadashay Khadiijo isbeddel annagu waddankan waxaan ka rabnaa isbeddel dhab ah isbeddel wax ka beddela dhaqaalaha isbeddel wax ka beddela amniga isbeddel wax ka beddela awood qaybsiga isbeddel wax ka beddela mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ma rabno kuraas isbeddelaysa laakiin waxaan rabnaa waxqabad dhab ah annagu waxaan raadinayna waxa ay tahay dal amni ah garsoor daacad ah ummad wada jirta iyo dawlad isku filan ciddii rabta marka inaan gaajada ka baxno ciddii rabta inaan soo celinno xorriyaddeenna iyo sharafteenna ciddii rabta inaan qabyaaladda ku beddelno qarabnimo iyo sharaf ciddii rabta inaan xanuun u adkaysanno sanad ama 2 sano laakiin aan dhisanno jidadkaas iyo sarahaas oo kale ciddii rabta inay tiraahdo awoodda Soomaaliyeed waxaa iskala shacabka Soomaaliyeed ma aqbalayno dalaaliin ku kala dhigirta shacabka iyo dawladda ciddii intaas diyaar u ah doonaysa waxaad haysataa saaxiib la yidhaahdo farmaajo ciddii doonaysa in qabyaalada waddanka lagu dhaqo in dawlad walba la dumiyo in musuqmaasuqa lagu soo celiyo in xoolaha waddanka qolo yar ay haysato waxaad saaxiib la tahay 27 sano la soo dhaafay yaan laydin sirin marka waxa laga hadlaayo ma aha xasan khayre weyne farmaajo waxa laga hadlaayo waa dalka Soomaaliyeed
waxa laga hadlaayo waa ummadda Soomaaliyeed waxa laga hadlaayo waa mustaqbalkiina ama gurihiina ku jira ee sidii hore ahaada ama fursadaad haysataan kaalay dawladnimada nala dhisa waa maadsantiin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane xasan cali khayre khudbaddii munaasabaddeeda halkan uu ka jeediyey waxaan aad idinkaga mahad celinayaa sida sharaaftul aad u dhegaysateen